halyidiirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayreetu caqabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado halyidiirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayreetu caqabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula darye allow kula dadaal oo kula darye hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula darye allow kula dadaal oo kula darye halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciif midkan qaadano dastuurkiyo sharciga kasi dhowrayo khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula daryeel halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciif midkan qaadano dastuurkiyo sharciga kasi dhowrayo khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula daryeel dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonayo khayreetu caqabo hibadii dalkani hore uu lahaa midka raadiye inuu soo cesho higsi dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonaye khayreetu caqabo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya Xasan Ali Khayre waxaan leenahay mudane mas'uul mudane wadani mudane siyaasi isku soo dhawow xarunta Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aad baan ku soo dhaweynaa hadii aan nahay dhalinyarada shacabka reer Soomaaliyeed ee degan Gaalkacyo waxaan kugu soo dhaweynaa sharaftan iyo ciidadan aad baan ku jecelnahay dawladda nabad iyo nolol waxaan leenahay dawladda nabad iyo nolol waxaan leenahay jiro joog waan taageersanahay dawladda nabad iyo nolol dawladda waan taageersanahay sida wanaagsan ay u shaqeynayso waa taageersanahay ruuxantii waxaan leenahay khayra jiro joog dawladdu khayra waxaan leenahay jiro joog ruuxantii dareenkaygu maanta aad buu u sareeyaa maadaama aan halkaan ku soo dhaweeyno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno ku soo dhaweeyno gobolka Mudug gaar ahaan Gaalkacyo waxaan sugnaa insha Allah waa inaan ka qayb qaadano soo dhaweynta si diiran waxaan leeyahay dawladda nabad iyo nolol insha Allah aad iyo aad ugu guulaysanaysaa waxaan galabtii u soo baxay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha qaranka Xasan Ali Khayre mudane Xasan Ali Khayre runtii dareenkaygu aad buu u sareeyaa waa markii ugu horreysay aan la kulmayo ra'iisul wasaare qaran intii noloshayda ahayd marka aad baan ugu soo dhaweynayaa mudane ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre ku soo dhawow magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug xaruntiisa Puntland farxad ku soo dhawow bulshadaadii iyo shacabkaagii
iyo dadkaad u talinaysid ku soo dhow ayaan leeyahay ra'iisul wasaare. waxaan imid inaan ka qayb qaato soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaan ku faraxsanahay inuu yimaado maanta magaalada Gaalkacyo waxaana bogaadinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida muhiimadda leh oo galmudug iyo arrimaheeda uga shaqeeyay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si uu mideeyay deegaanada galmudug sidoo nabadda uga wado sidoo horumarka uga wado waxaan u rajaynayaa Puntland sidoo kale iyo qaybtan waddanka hadda aan joogno garoonka Cawaalana wax ka qabto haddaan dhalinyaranahay inaan la kulanno oo soo dhaweyno waan jecelnahay aad iyo aad waxaan ka mid ahay taageerayaasha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa aad waxaan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweynayno magaalada Gaalkacyo qaybteeda waqooyi Gaalkacyo qaybo kala lahan sidii ra'iisul wasaaruhu sheegay waa magaalo qur'a waa magaalo isku degan yahay ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa waxa soo dad aragtaan waa ra'iisul wasaaraha taageeradiisa annagu waxaan nahay dhalinyarta Gaalkacyo wali ma aanan arag dawladdu waxa kan yiraahdo sidaan oo kala ma aanan soo gaarin maanta waxa kale yiraahdo dawladdu waxa kale baanboygeedii wadata waxa kale yiraahdo dawladnimo noo muuqata waa qiireysanahay run ahaantii ra'iisul wasaaraha waxaan soo dhawow gacan furan ma kugu soo dhaweynaynaa Gaalkacyo waa idin salaamay inaan idinkugu imaado garoonkii Maxamed Cawaale Liibaan oo ah halyeygii calanka Soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah waa ku mahadsantiin shacabka reer Gaalkacyo waxaan uga mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ay nagu soo dhoweeyeen aniga iyo wafdigayga waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin xalayto ayuu igu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadaydii gacmood ay geestii waqooyi Gaalkacyo ba nabadba geesiyaal magac dhabogaygii lagu yaqaano Gaalkacyo